وبرنامجكي بربارتي iyo beeraha iyo qaybihii aan uga hadlaynay jiilaalkan adag ee lagu jiro waxaanu barnaamijkii kan ka horeeyay kaga hadalnay saameynta dhinacyo badan ee guritaanka webiga waxaa ka mid ahaa dhinaca dadka adduunyadii ku noolayd iyo dalagyadii waraabka joogtada ahaa ka heli jiray saameynta biyo la-aanta webiga ee dhinaca cayaanada siiba kuwa faa'iidooyinka leh ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ku baxay barnaamijkii kan ka horeeyey haddii aan barnaamijkeena maanta u imaanana biyo la-aanta webiga Shabeelle waxaa sidoo kale saameyn ba'an ay ku leedahay dhinaca noolihii laga helay deegaanka qulqulka biyo meel mara ama waxa loo yaqaano webi waxa ahmiyad weyn la siiyaa dhinaca deegaanka oo ay ku nool yihiin noolayaal noocyo kala duwan leh sida kalluunka duurjoogta iyo sidoo kale noolayaal kale oo ilma qabata ah kuwaas oo dhammaanba deegaanka ahmiyad weyn ugu fadhiya deegaanka ayaa u baahan minimum environmental flow requirement taa oo haddii la waayo ay wax iska bedeli karaan muuqaalka guud ee deegaanka iyo wixii ku noolaa faa'iidooyin badan oo ay xambaarsanaayeen ayaana meesha ka baxaya ka gadaal guritaanka webiga waa webi Shabeelle oo sida idin muuqata guray jiilaalkii sanadkii hore ayay ahayd markii webiga uu guray markaas oo saameyn xoog leh u geystay beeralayda iyo beerahooda suuqyada la keena dalagyada iyo macaamiisha ka adeegta intaba bishii Maarch ee sanadkii hore ayay ahayd markii la diiwaan geliyay oo la record gareeyay guritaanka webiga laakiin sanadkan xilli hore oo bishan January ah ayuu webigu guran yahay beeralayda afka ayaa gacanta u saaran maxaa yeelay waa wax aysan arag in dhawaanay waxaanu eegi doonaa maxaa keenay guritaanka webiga taariikhda ma dhici jirtay inuu webigu qalalo maxaa bedel ah oo u noqon karo oo ay tahay inay beeralaydu adeegsadaan maxaase dhici kara mustaqbalka su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaanu hor dhignay xarunta cilmi baarista kheyraadka dabiiciga ah ee Somali Natural Resources Center marka webigan Shabeelle way ka sii daran tahay marka fiiriso sababtoo ah wuxuu ka mid yahay webiyada ugu biyaha yar East Africa marka la eego wadamada bariga Afrika wuxuuna ka mid yahay webiga ugu dheer wadamada East Africa waa Cabdullaahi Xasan Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay shahaadada masterkana ka wata maareynta kheyraadka biyaha gaar ahaan webiyada ama Integrated River Basin Management waxa uu sidoo kale sameeyay koorsooyin caalami ah oo ay ka mid tahay sharciga caalamiga ah ee biyaha International Water Law maareynta fatahaadaha iyo abaaraha waxa uu ka mid ahaa asaasayaasha xarunta cilmi baarista kheyraadka dabiiciga ah ee Somali Natural Resources Center waxa uu marka hore sharaxayaa kheyraadka biyaha ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa maasan tahay waqtiga qaali aan kaga mahadcelinaya haddaan wax yar ka iraahdo kheyraadka biyaha aan leenahay Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada markii la eegayo ay lagu tilmaamo wadamada biyarida caalamka ka mid ah ama si kala daan iraahdo wadamada water scarcity-ga ka jirta ayaa lagu tiriyaa Soomaaliya markii loo eego meesha aan ku taalno geographic ahaan cimilada aan leenahay oo ah cimilo oo semi arid ah taasoo ah lagu yaqaan roob yari abaar soo noqota iyo wixii la mid ah marka biyaha aan leenahay waxa ugu muhiimsan marka loo eego biyaha fresh water-ka waa biyo aad u yar cadadkoodana taas waxay keenaysaa in lagu tiriyo Soomaaliya inay biyar tahay tusaaladan u soo qaato Soomaaliya waxaa maray laba webi labada webina waxaa wadaaga laba wada webiga Juba waxaan wadaagnaa Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia wadaaga saddexda wadana marka fiiristo waxay ka mid yihiin wadamada East Africa cimiladaana way ku kala duwan yihiin Soomaaliya markii loo eego wadamada kale dhinaca cimilada ahaan waa meel kulal waxa badan biyaha lumistooda maadaama webiyadana meel kale ka yimaadaan intana soo gaaraysan waa in yar sababta waxa ku xiran dad kale webiga Juba ugu biyo badan marka loo eego webiga Shabeelle waa biyo yar oo lagu qiyaaso 2 ilaa iyo 8 bilyan sanadkiiba taasoo iyada laftirkeeda marka loo eego isticmaalayaasha biyaha kala duwan sida beeraha xoolaha dadka deegaanka iyo warshada oo la sameyn doono waxa soo markii loo eegana naftirkiisu markii loo eego biyaha yar yihiin
guud ahaan Soomaaliya waxay kaloo leedahay tago kale iyo waxyaabo kale iyo webiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira loo yaqaan ground water oo sanad la ogeyn tiradu yahay intuu la eg tahay waxaana la og yahay kaliya in webiga iyo isku xiran yihiin ground water haddii webiga uu badan yahayna biyaha dhulka hoostiisa ku jira ay badnaanayaan haddii webiga biyo yar uu wadana biyaha dhulka hoostiisa ku jira ay yaraanayaan marka guud ahaan biyaha aan leenahay iyo dadkeena tirada xoolo aan leenahay oo lagu qiyaaso ilaa 42 milyan oo xoolo isugu jira loo ari geel iyo ido deegaanka aan ku noolnahay deegaan cimilo kulul ah oo runtii biyo badan u baahan beeraha aan leenahay oo dhul ahaan lagu qiyaaso 8.1 milyan hektar oo ah runtii dhul aad u baaxad weyn dhulka erigabalka oo waraabkan aad u badan yahay iyo xoolaheena populationkeena oo nafkiisa ay markii loo eego 1950kii meeshuu joogay maanta siduu yahay iyo guud ahaan bulshada geeska Afrika oo naftiisa sii kordhayso waxa kaloo iyaduna ay saameyn kala leh wadamada aan wax wadaagno naftirkooda kororkooda dhaqaalan oo kordhayo biyahan ay ku xiran tahay noloshooda iyo dadkooda aad u sii kordhayo saladan soo qaatay Ethiopia maanta aan labada webi la wadaagno dadkeeda waxa lagu qiyaasaa 100 milyan marka intaas oo dhan waxay saameyn ku yeelanaysaa dhinaca hoose ee webiga oo ah dhulka Soomaaliya sanadkii hore oo uu guray webiga bishii March rajada ah in la helo webigii oo qulqulaya ayaa dhaweyd maxaa yeelay xilli u dhow waqtiga waxa la filayay inay curtaan roobkii go'a laakiin sanadkan waxa uu qalalay xilli hore oo bishii January ah daamada cirkana xilligii lagu yaqiinay sooma dhawa sida daraadeed saameyntu way ka cuslaan doontaa tii sanadkii hore runtii marka hore waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed murugadan webigii oo ku xiran nolosha dadka Soomaaliyeed halbowlihii dhaqaalahana ah gaar ahaan markaan ka hadlayno webiga Shabeelle dhulka uu maro iyo ummadda ku teersan markaad fiirisid xoolaha iyo beeraha sanadkii hore wuxuu guurisaad ka dhawaajisay bishii Maarso sanadii 2016 laakiin waxayna ahayd markii ugu horeysay webiga Shabeelle soo guud ahaantiisba inuu qalal la arko oo baawur dhex yaalo kubad lagu ciyaarayo iska badhaaf in biyo laga qaato dadka ay damac ka gal xataa in webiga dhaxaysa ay biyo ka qotaan taa waxa ka sii daran saameynta sanadkan oo ah sanadka 2017 oo ah runtii webiga sanadkii hore wuxuu guray bisha Maarso sidaan ognahay markii loo eego cimiladeena ama xilli roobaadkeenana bisha Abriil waxa la filanayaa roobka guuga inuu bilaawdo bartamaha Abriil 10ka Abriil markuu Maarso guray rajadu way fiicneed laakiin sanadkani guritaanka webiga wuxuu bilaawday aakhirka December oo webiga dhinaca hoose markaan leeyahay waxaan ula jeedaa qaybta Soomaaliya ee hoose meeshu ka dhamaanay Hawaii ka soo bilaab Qoryoole ilaa iyo Afgoy ku keentay wuxuu guray bishii December webiga guud ahaantiisna hadda wuxuu israacay bishii Janaayo taasoo runtii ay saameyn weyn ay ku yeelatay ummadda Soomaaliyeed laba arrin dartooda koow xilliga fog oo jiilaal lagu jiro oo 3 bil soo socota aan roob la filanaynin bisha Janaayo iyo Maarso iyo Febraayo oo la sugay dadka xoolalayda inay soo qaxaan oo yimaadaan webiga jiinkiisa ay ka raadsadaan in nafta xoolaha lagu badbaadiyo dadka baadiyaha ku noolna ay webiga ay ka soo raadsadaan qoodka xoolaha oo mabaasjar ama garaas wixii xoolaha cuna lahayn oo nafaqa ah laakiin sanadkani taawa ka sii dartay wuxuu ku soo aaday xilli webiga Maarso inuu guray sanadkii hore waxa raacay roobkii guuga oo yaraaday meeshaas waxa ka dhashay abaar nooca kamid abaaraha loo yaqaano abaarta beeraha ama si kala daan oo dhigno agricultural drought abaarta wax loo kala saaray ilaa 4 nooc mid waxay ku timaadaa hydrological drought lagu yaqaan waa mid markii biyaha ay iska dhamaadaan iskood u go'an midna waa meteorological oo saadaasha ku xiran in roobka uu yaraado abaarta ka dhalatay nooc kamid ah abaarta saddexaad oo ah markii labadaas isku darsomaan mid saddexaad oo dhacayso wax soo saarka inay saameyn ku yeelato oo loo yaqaan agricultural drought taa iyadoo saddexdii israacay guugii roobkii soo yaraaday wax beerihii waad ogeed webiga Maarso eber buu ahaa May markii joogay fatahaad baa ka bilowday webiga Shabeelle gaar ahaan dhinaca sare dadweyne aad u xasuustay beeraleyda markay iyagoo shaki qaba webiga guritaankiisa ka cabsi qaba roobkii webiga oo Abriil filan oo sandiin May roobka ugu badnaa u day taasoo fatahaad keenay marka wax soo saarkii xilligii beeraleyda diyaar garowgii cabsi dartooda aysan diyaar garoobin roobkii dib u dhacay waxay keentay in sanadka ay noqoto guug iska yar xumaado aan ahayn sidii hore loogu talagalay taa waxa sii raacay beerta Soomaaliya waxa laga filanayaa inay bilaabato 3 bil ugu dambaysa November October iyo December laakiin sanadka markaa fiirisid koonfurta Soomaaliya oo runtii labada webina ay maraan
roobku wuxuu bilaabay bishii November kowdeeda roobku wuxuuna da'ay waqti kooban tiradiisna waa yareed marka loo eego meeluhu ku baahsan yahay ama distributionka rainfall marka laga hadlayna aad buu u yaraa marka taa waxay keentay mar labaad inay dadkii ay adana beerihii ay noqdaan kuwa fashilma ama waxa loo yaqaan crop failure inuu dhaco labadii markay isku darsoomeen meesha waxa ka dhalanay marka abaar oo socio economic ah iyadoo abaartii socio economic jirto nasiib xumo bishii December hadana waxa qalalay webigii mar labaad taasna waxay ku soo darsantay abaartii kale oo hydrological drought marka meesha waxa ka dhacay abaar oo hadda sanadkan lagu qiyaaso in ka dari doontaba ilaahan ka baryana inuu ka sii yareeyo abaartii ay dhacday 2011 oo saameyn weyn lahayd marka labadaa markay isku darsoomeen webigiina Janaayo uu guray xoolihii iyo dadkii marka xaaladdu way ka sii xumaatay waa guray oo qalalay oo weliba meelihii hirarka iyo meertada badnaaba dhuloobay maxaa haddaba keenay guritaanka webiga runtii waxyaabo badan baa loo aaneynaya webiga Shabeelle waa ogtahay webi kaliya Soomaali xuduudeeda ka soo bilowdo kuna dhamaada ma webiga Shabeelle waa webi aan la wadaagno wadan diris ah Ethiopia sida ogtahay waa dawlad awood leh maanta dhan kasta markaa waxayna rabtaa inay gaarto 2020 aragtida Ethiopia waxay tahay inay ka mid noqoto wadamada mid class economic loo yaqaan wadamada dhaqaalahooda fiican inay ka mid noqoto doonaysa si taas ay u sameeyso Ethiopia waxay dejisay waxay ka soo gudubtay fulinta mashruuci ama programkii ama siyaasadii loo yaqaanay GTP Gross Transformation Policy hore u soo dhamaaday sanadan 2015 waxa uu bilowday inay u gudbaan siyaasadoodii labaad kor u kaca dhaqaalaha ee wadankaas ay ku tiigsanayaan marka guud ahaan guritaankan waxa loo aaneynaya in cimiladii horta isbedeshay oo roobku meeluu ka di'i jiray Ethiopia waad ogtahay sanadkii 2015 waxa ka dhacay abaartii ugu darneed roobkii oo sidii loogu talagalay uusan ahayn taa waxa sii dheer biyihii webiga oo guud ahaan hadduu iska yaraadayba waxaa kordhay dhinaca kale tan hadda aan ka sheekeynayo inay Ethiopia rabto inay ka mid noqoto kobac dhinaca dhaqaalaha sanadda 2020 taasoo keentay marka isticmaalka biyaha webiga oo ku kordhay dhinaca sare waad ogtihiin webiga Shabeelle dib hadda u fiirisay taariikhdiisa hore meelaha uu soo maro kamaysan jirin mashaariic aad u weyn dhinaca beeraha laakiin maanta aan kula hadlayno marka joogtid guday waxa dareemaysaa in beero tira waaweyn kanaal aad u weyn ilaa 50 kilomitir beer laga sameeyay bixireena fara badan in la sameeyay marka taasna waxay keenaysaa isticmaalkii kordhay dhinaca sare Ethiopia waa hal sabab oo webiga inuu guro ama uu dhamaado Soomaaliya xaggeeda sabab u ah iyo guud ahaan tan cimilada oo mid iska rabaani ah marka labadaas oo isku darsoomay waxay sababtay inuu webiga dhinaca Soomaaliya guud ahaan qalalaba 2 sano isku xigta labada saameyn aad u kala badan yihiin tana ka sii daran tan hore waxay ku soo aaday iyadoo dadku ay wax haystaan rajo badan ay qabaan laakiin tan xilli lagu jiro Janaayo waqtigan uu fog yahay guuguna aan la ogeyn sidoo noqonaay marka rajadu aad bay cuntahay waana abaar aad u kulul maxaa dhici kara mustaqbalka su'aasha kale oo rabnaa ku weydiiyo iyo waxaad isu kay raacinaysaa webiga sanadkii hore waa guray sanadkan waa guray mustaqbalka maxaa dhici kara marka la fiiriyo wixii la soo maray iyo waxa hadda la joogo iyo waxyaabaha loo aanaynayo guritaanka webiga inay keenaan kale sharciga caalamka muxuu ka qabaa waxa sheegtay webiga Shabeelle inuu dalka Ethiopia ka yimaado Soomaaliya uu soo maro caalamkana waxa laga yaabaa sidaas si la eeg in webiga ay dhowr wadan wada wadaagaan marka sharciga caalamka u yaala dhinaca wadaaga webiga asigana maxaan kala soconaa oo Soomaaliya oo kale macnaha u dacwoon kartaa xiisa caalamka sharcigeeda uu ka qabanaya aad u maasantahay kan haddaan ku hormaro dhinaca sharciga ama sharciga caalamiga ee biyaha caalamka oo dhan guud ahaan waxaa jira adduunka conventions badan ama waxyaabo la isku raacay in la sameeyo dhinaca biyaha waxaa jira tusaale ahaan UN Water Convention marka hadda fiirisid waxa loo yaqaan international water law hadda si fiican u fiirisid waxa ku qoran mabaadi' aad u waaweyn mabaadi'aas waxa kamid ah in labada wadan ay wax wadaagayaan wax ka dhaxeeyaan wadanka sare inuu san sameyn wax saameyn la arki karo marka la yiraahdo waa significance harm waxa Ingiriis lagu yiraahdo saameyn muuqata wadanka hoose inuu ku sameeyo waa wax mamnuuc ah oo in ka mid tahay mabaadi'da marka laga hadlayo biyaha caalamiga disan waxa kaloo ka mid ah mabaadi'da in labada wadan oo dariska ah oo kheyraadkaasna ka dhaxeeyo inay jirto inay information ka share gareeyaan oo la yiraahdo webiga wanaga yaraanaya
roob badan baa daay fatahaad baa idinka dhici karta diyaar garow in la sameeyo nasiib daro markaad fiiriso wadamada East Africa kama mid aha wadamada saxiixa UN Convention-ka Ethiopia waa wadan upstream 1997 markii UN Convention-ka la sameeyay Ethiopia goobjoog bay ka ahayd wadankaas halka Soomaaliya aysan wadan dawlad ka dhisano matalaad ku yeelata Kenya iyadana aan wadaagno wadiga Jubbaland aftarkeeda goobjoog bay ka ahayd marka Ethiopia 97 waxay diiday inay u codeyso xilliga inay u codeyso inay ka mid noqoto heshiiskaasi guud ahaan ka jira caalamka oo dhigaya in labada wadan ay si equitable ah si isla eg lama dhihi karo saameyn badan baa la fiirina waxa laga si equitable ah adiguna baahidaada laakiin baahidaada wax ka badan oo umada kale adiga wax kula wadaagaysa dib u keenaynin inuu qofku uusan sameeynin wabigana guud ahaantiisa informationkiisa la wada helo marka Ethiopia ka mid ah wadamada oo upstream loo yaqaan wabigana ka soo baxa maysan saxin heshiiskaasi haddii marka loo eego wabigana guray Soomaaliya maxay kaga dhigan tahay runtii waa 10 aad waxa la rabaa wax kasto ku soo mara adduunka in 10 in laga barto wabigan ma guri jirin laakiin xilligan waa guray sababta hadda kadibna hadaad waxaan rabaa in hal kale sii raaciyo ah Ethiopia in xilligii dawladda anaga aan dawlad Soomaaliya aysan lahayn dawlad aqoonsan Soomaaliya waxaad ogtahay dawladdan federaalka markii ay noqotay 2012 baa waxay noqotay in caalamku aqoonsado dawlad la aqoonsan yahay awood buuxda leh saxiix leh oo wax fulin karto waxna ogolaan karto laakiin ka hor waxaan ku jirnay dawlad dhisid iyo tabaryari ku meel gaar baan in muddo ku soo soconay xilliga aniga aan ku meel gaarka ku jirnay Ethiopia waxay labada wabiba u dejisay qorshe fog oo hadaad waxa jira qorshe la yiraahdo Ganaale Dawa master plan oo wabiga Juba anaga xageena iyo wabi Shabeelle master plan oo dhinaca Ethiopia labada qorshaba markii la dejinay nasiib daro Ethiopia ma aysan tixgelinin dhinaca hoose ee wabiga oo Soomaaliya maadaama aysan dawlad ka jirin cid la xisaabtamaysa aysan lahayn cid dhihi karta maanta qorsheena anagana bal sababtoo qorshe markii la dejinayo wadanka upstream waxa waajib ku ah inuu dhinaca hoose fiiriyo saameynta ku yeelan karo ko biyaha in la isla ogaado idinka beeriin in soo baahan yihiin beeraha Soomaaliya hoosena maxay u baahan yihiin dadku intee leeyihiin dadkin intee leeyihiin si wada jir ah in loo sameeyo cilmi baaris oo dawli ah not cilmi baaris oo qof NGO iyo qof iska sameeyo cilmi baaris dawli ah la sameeyo oo mid kastana tusaysa wadankaas interestiis adduunku waa interest lagu wada joogo maxaa adduunka dan ku ah maxaa aniga dan yahay kadib wixii la isku mari waayo waa la isku imaanayaa wadana wuxuu ka tanaasulaya wadana wax buu qaadanaya marka waxaan hadalkan u soo qaatay ma jirin wax in Soomaaliya lagala tashto hadaa si akhrisid master plan-kan waxa ku qoran in Ethiopia ay ku doodayso xilligaas in Soomaaliya aysan dawlad lahayn ay kala tashataba qorshaha fog ee ay dejinayso marka labada arin marka fiirisid wabiga Juba laftirkiisu dadku wali way mahsan yihiin laakiin maalin baa la arki doona wabiga iyo hadana iska hooseeya biyaha hadda uu leeyahay saalaad hadan u soo qaato Kenya iyo Ethiopia baa hadda waxay isku dayayaan inay ka sameeyaan Mandera korkeeda dam loo yaqaan markii Barbos marka wabigan Shabeelle way ka sii daran tahay marka fiirisid sababtoo ah wuxuu ka mid yahay wabiyada ugu biyaha yar East Africa marka la eego wadamada bariga Afrika wuxuuna ka mid yahay wabiga ugu dheer wadamada East Africa koos dhulka uu maro uu ka soo bilaawdo buuraha sare Ethiopia ilaa uu ka gaaro dhulka Hawaii waa dhul aad u baaxad weyn tan kale oo daba socota wabiga Shabeelle dadka wabiga Shabeelle noloshooda ku xiran tahay waa dad xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato beeraley ah oo noloshooda toos iyo si aan toos ahayn ugu xiran tahay biyahaas oo dhaqaalada wax kale aan ku xirnayn tan saddexaad oo wehelisa oo wabiga dhibaatadan ku soo celinaya waxa kamid ah in cimilada uu maro wabiga markii la eego inay tahay cimilo oo desert iyo semi arid ah oo biyo badan loo biyaha Sahara oo biyo badan ku lumaayo taa iyadoo jirto markii Ethiopia qorshe ay sameynayso ma aysan eegin dhinaca Soomaaliya sababta waxa la og yahay Shabeelle wuxuu maraa dhul halbowla ah wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ku wanaagsan haddii Shabeelle dadka Soomaaliyeed markii guud ahaan la eego koonfurta Soomaaliya waxay ku nool yihiin dadka intooda bar 60% waxa la dadka Soomaaliyeed waxay ku nool dhinaca koonfureed magaalada Muqdisho aan ka hadlayno saameyn buu ku yeelan doonaa wabiga Shabeelle sababtoo biyaha Muqdisho laga helo biyaha dhulka hoostiisa ee biyahaas oogada sare maran xiriir baa ka dhaxay kan hadduu yaraadana wuxuu saameyn ku yeelanayaa kan waxa kale oo arin kale muhiim ah in laga dhawaajiyo ay tahay haddii wabigaas uu yaraado bad baa Muqdisho dhinaca ka saaran waxa dhici kara wax loo yaqaan ground water intrusion badii inay cusbadeeda ay ku soo siqdo because hadda Ilaahay baa isku haa geologically biyihii way is haystaan marka waxaas oo dhan waa saameyn hadda ay dadku aysan u jeedin laakiin mustaqbalka imaan karta
maxaa marka u qorshaysan Ethiopia webiga Shabeelle xagiisa waxyaabaa u qorshaysan waxa kamid ah inay fuliso mashaariic aad u waaweyn ay u bixisay hadda waxay ka soo gudbeen inay fuliyaan mashaariic yaryar laakiin hadda qorshaha socda oo 2000 iyo hadda ilaa iyo laga gaarayo sida qorshooda 2035 inay mashaariicda ugu waaweyn webiga ay ka fuliyaan taasoo ka dhiganta Soomaaliya inay wax badan ay ka fiiraan u baahan webiga Shabeelle Soomaaliya gebi ahaan inuu guro hadda waxa laga yaabaa webiga season buu ku socdaa xilligan uu guray sanadkii hore guray waxa laga yaabaa 2 sano kale wax inuu guro laakiin qorshaha degsan oo Ethiopia u degsan oo yahay biyahaas inay iyada isticmaasho intay ka isticmaali karto iyadoo wax tixgelin aysan siinaynin dhinaca webiga Soomaaliya qaanuunka caalamka haddaan u soo noqono su'aashii ahayd qaanuun caalami baa jiro laakiin qaanuunku wuxuu ku qabanayaa markii labada wadan ay saxiix ay ku leeyihiin dadaal kale waxaa jira oo gobol ahaan loo sameeynayo maalmahan dambe wadamada IGAD ba waxay dejisay qorshaha gobolka ee siyaasadda biyaha oo IGAD Water Resource Policy taasoo runtii qaanuunta ku qoran iyo mabaadi'deeda ay ka soo qaateen mabaadi'da guud ee midda caalamiga oo ah labada wadan dariska inay wadaagi karaan biyaha si labadooda ay ugu faa'iideystaan inaysan webiga dadka sare ay jiraan aysan dib u keenin dhinaca hoose processkaas wali waa iska socda oo iska dabajiid buu marayaa wali wadamadii ma waysan saxin laakiin waxa la soo saaray Mars 2015 ba sharcigaas uu soo baxay hadda IGAD waxay diyaarinaysaa sharci kale oo in guud ahaan water law ay samayso process badan baa soo laakiin Soomaaliya waxaan leeyahay runtii meesha ay ku taala markii loo eego dhinaca markii laga fiiriyo wadan istiraatiiji ah bad iyo fiican leh khayraad fiican leh laakiin dhinaca biyaha markii ka eegno waxa lagu tilmaamaa disadvantaged country sababtoo ah labadiisa webiba waa laba webi wadan anaga naga tira badan maanta tira ahaan dhaqaalahooda oo raba inay horumariyaan xasilooni siyaasadeed ka jirto waxay doonaan ay ka sameyn karaan naga koreey marka intaas oo dhan waxay yeelan doontaa saameyn mustaqbalka gunaanadkii talooyin wax ku ool ah ayuu soo jeediyay Cabdullaahi Xasan Xuseen oo marti ku ahaa barnaamijkan barbaarta iyo beeraha waxaan ku soo koobayaa taladeeda wax kooban marka hore waxaan leeyahay dawladdu inay feejignaan guud ay siiso webigan inuu yahay water marka laga hadlayo waa national security biyuhu meelsan ilaahay wuxuu leeyahay jacalnaa min almaa kulli shay'in hayyin afala yu'minuun haddaysan biyo jirin nololna ma jirin marka dawladdu inay feejignaan siiso sidii labadan webi biyaha ku jira loo badbaadin lahaa meesha waxa ka maqan maareen in dadku biyaha marka waxaan ku talaa marka beeraleyda inay waliba gaar ahaan beeraleyda waaweyn maalmahan dambe waxaan maqlaynaa beeraleyda ugu waaweyneed oo mooska dhoofin jiray waxay ka fikri jireen kaliya lacagta ay ka helayaan laakiin kamaysan fikirin biyahan maanta way dhamaan karaan marka waxaan ku talin lahaa in beeraleyda waaweyn oo awood u leh inay ceelal ay sameystaan oo markii xaaladan oo kale gaar si ummadda oo dhan saameyn ugu yeelano ay wixii la badbaadin karo beeraleyda yar waxaan ku talin lahaa xilli roobaadka inay ka fikiraan inay roobkooda qabsadaan oo waxa loo yaqaan rain water harvesting sameeyso laakiin intaas oo dhan waxa loogu badbaadi karaa in webigii wuxuu lahaan jiray webiga Shabeelle taariikhda wax yar soo koobo wuxuu lahaan jiray biyo xareeno ilaa iyo 9 gaaraya ama barrages waxa loo yaqaano waxay lahayd KB baa jiri jiray marka biyuhu marka soo aragtay sanadahan dambe intaan anaga da'deen marka fiiriyo xilina sanadkii gudihiisa marna waa fatahaad marna waa abaar marka in dawladda ay ka fikirto ama shacabka guud ahaantiisa Soomaaliyeed inay ka fikiraan kaydkii biyaha in dib loo dayactiro lana sameeyo si markay biyaha ay yaraadaan biyaha isoo loo wareejiyo meesha ay soo galaan intaas aan ku tarin lahaa waxaan u mahad celinayaa oo igala qayb galay Cabdullaahi Xasan Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay shahaadada masterkana ka wata maareynta kheyraadka biyaha gaar ahaan webiyada ama integrated river basin management waxa uu sidoo kale sameeyay koorsooyin caalami ah oo ay ka mid tahay sharciga caalamiga ah ee biyaha international water law maareynta abaaraha iyo fatahaadaha waxa uu ka mid ahaa asaasayaasha xarunta cilmi baarista kheyraadka dabiiciga ah ee Somali Natural Resource Research Center Cabdishakuur Ibraahim Cabdi ayaa soo saaray idalana socodsiinaya barnaamijkan barbaarta iyo beeraha tan iyo kiisa xiga inta aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo iyo tasho oo tacbo inambar antagno bilcaanti alla bashalne balwa antunaba la dhelno kuma baanan karne inambar antagno bilcaanti alla bashalne
balwa aantu nabaa la dheelno kuma baanan karne aan isbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne aan isbarno